boqol iyo 320 arday oo ka qalin jabiyay dugsiga farsamada gacanta ee Ayodha ayaa maanta xaflad loogu qabtay hotelka Rays ee magaalada Boorama. Munaasabadaasi ayaa waxa ka soo qayb galay culimada diin, siyaasiyiin, waxgarad, aqoon-yahan iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Awdal, barasaabka gobolka Awdal. Ugu horeyntiina halka waxa ka hadlay xogayaha fulinta ee Ayodha Siyaad Cumar Cali isagoo ka hadlay heerarkii kala duwan uu soo maray dugsiga farsamada gacanta ee Ayodha. horumarkana inkastoo horumar wada cid kasta soo dhaweeyso inaan wixii aan halka ka fulweynay muddada badan lagu garaa 9 sano inaan Soomaaliya qaybaha kala gaarsiino inaan wadamada dariska gaarsiino inaan jamciyadu ku qabtaane dawladahana taa kula ka helo in si buuxda marka la isku kaashado qobaashi hadda waxay la darasiyo Soomaaliya qiimo sare ugu taagan tahay hadda waxay naga taabto waqtigii reconciliation-kii ama waqtigii dib u soo noqoshada qadan Soomaaliya waqtigii reconciliation-kii nabadeynta waqtigii kale socodsiinta dastuurka hirgelinta dimuqraadiyadaha يعني الناس هذا ما هيك ضد غير أول سومالنا قيمة صحيح لو تاجتها قيمة وينو هلا يا بالكودي ومرنا بكها مغنين حقولها عندنا لغة السومالنا وهذه هذا يعني قيمة يقول أنا هيك ضد السومالنا أي نسيت إن أنا مرة وحاش بالنقاط إنه ما دام أنا هي يعني ضد السومالنا قيمة هذا لا تقول هنا قيمة خوشنو waxaana halkaasi ugu dambeyn ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan waxaana hadaladoodii kamid ahaa farsamo gacmeed oo sanada 4 years la insha Allah taala oo la galo marka form 2 la baxo baraanku saaradu iyo lawaka iyadoo secondary marka laga baxo u tagay jaamacadda oo aan ahayn engineering oo aan ahayn waxay ku xisbaa kuwii magaranaysa kan oo engineer ma hayno الحمد لله رب العالمين ninka dhoofe maalinta xabadu dhacaysay lana baahan dagaalka waa kaga jiray ee dib u soo noqon horta kaas laakiin ka farxadan iyo nimcadan iyo dalka arkaan dadka dibtoodu ma ka taranaya anigu abaari wax baan soo diray meelaha dhibaatadu ka jirta waan la soconaa waan soo dirnaa laakiin ka caytama ee TV-ga ka soo baxa kaasi qaar wax soo diran kuwaasna ku dalka adag gacantu ama xirfadaha kala duwan ee qofku uu noqdo life skills إيه وحمل كورة سبعة منافعات سنسو وقف كل كورة سبعة مركو يقول يلي هاي وحكيش على سريع الكيسي يوم الكيسي ينتظروا يبغوا فايا وحاوير قفجار كاغا وطبخ كبختي لكن هو يداو تعاويسو أما كاغي هو نلكيوش تو أما المهاجي أو عيدي جو دركي تصوي بساتي دوالها مركو هالسبب إنك بوكو سوغليا سكيلز كان ما في جوكتا وعقوبة عن ساعتي دوالك أتسيل دوالها كلا أتسيل هاي إن هذيك أكل كاجو بعدتو وهو صاحب الشركة فسنوي كنا عصا وحنو قبائل تيجي اليوم محمد بلي هروناك نيوز مقالة بورما.